xaflad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen madaxa sare ee garabka haweenka wadanka Britain oo lagu soo dhaweynayay marwada koobaad ee xisbiga kulmiye Marwa Aamina Waris iyo Marwa Ilhaan Maxamed Jaamac oo ka tirsan madaxda sare ee xisbiga kulmiye. ma waxay ku qabsatay qormiyay nagu qabsatay walaalayaal soo inagu maynu dooran maantana waxaynu leenahay doorashadayadii anigu kollayba kuwii doortay kama mid ahayn laakiin kuwii doortay in good faith bay ku doorteen waxay ku doorteen iyagoo islaama waxbay qabanayaan maanta waxaynu ka rabnay haddaanay qaban xabad ku ridi mayna dee waxaynu ku ridayna waxa weeye farteena iyo codkeena dimuqraadiyadda aynu ku faanayna dalkeena ka taaganina waa tawa inoo gelisay taa aynaan xabad isku eriyanayn aynaan feer isku eriyanayn aynaan ciid isku shubayn ee afkunka wada hadlayno iskana codaynayno shacbiga Somaliland maanta wuxuu u diyaar yahay inuu udub cod kaga qaado kulmiyada cod ku saaro ee cunta taas walaalayaal in la beero raashinka aan cunayno ibda ciday xoogalato aniga awood mana ay ku toosay taan dalamba wuu ku beeray dayaxa bariiska wuu ka soo baxay marka way beeri karaynaa laakiin waynu helaan nidaam iyo system inuu ilaaliyo inuu wax beero kulmiyaha daaru nahay beeraha horta number 1 waxaan filaynaa khudrad dibadda ka timaada si dadku ugu dhiira loo suurta gashay inaan mikrofoonka la dhexmarno madaxdii sarsare ee ka soo qayb gashay xafladani gaar ahaan Aamina Waris iyo qabanqaabiyayaashii Aamina Waris adigoo mahadsan waqtigaaga qaaligaana ku mahadsan bal dareenkaagu sidoo yahay caawa wad mahadsantahay horta dareenkayguna runtii aad iyo aad buu fiican yahay waatay maahan markii koobaad xaflad noocan oo kale ka soo qayb gasho waqtiyadan dambana waxaad booqasho ku gala bixinaysay wadamadan aan dhahdo ee reer galbeedka gaar ahaan wadankan Britain maxaa ka dambeeya dareenka socdaalkaaga Aamina Waris socdaalkaygu dhowr wax buu ka kooban yahay mid weeyaan waxaan u nimi inaanu aniga iyo madax kale oo xisbiga kulmiye ka koobaniba inaanu ogaano jaaliyadaha Somaliland ee kulmiye taageere iyo kuwa kale ee taageerinba laakiin asxaabtayada iyo ehelkayagaba ah inaanu booqano inaanu dareenkooda ogaano inaanu dalka waayihiisa ka dhaadhicino ayaanu u nimi talabaad waxaanu u nimi waatan doorasho soo dhow marka inaanu taageerayaashayada dibadana dardar gelino waatay Aamina Waris inkastoo khudbad aad u dheer halka ka jeedisay waxyaalo badan ku taabatay wadankii marka la eego dhibaatooyin badan baa ka taagan gaar ahaan caasimada Hargeysa ee wadanka caasimada ah biyo la'aan baa ka jirta waxa dhacday ma yasaxada in wax lagu karsado magaalada Burco oo kale dhibaatooyinkeeda aad bay u farabadan lacagtii wadanka Soomaaliya ahayd baa laga qaataa maadaama astaanta lacagtu ay wadankuna ay tahay wadankii Soomaaliya laga qaadanaya maxaa muujin kartay Somaliland Burco inay ka tirsantay maxaa muujin kartay maadaama lacagtii Soomaaliya laga qaadanayo horta waan ka xumahay waa runta xaqiiqatan dhibaatooyin farabadan baa dalka ka jira taa hadaan u soo noqdo Burco ka jirta ee lacagta dawladda Siyaad Barre ku shaqaysan jirtay giimbaarta la yiraahdo ka socota waa mid aanu aad iyo aad uga xunnay waan huba dareen farabadan oo aad murugo u leebay Somaliland meel ay joogaan dadkeedu arinta ka muujiyeen sababtoo ay tahay budgetka dawladda dhowr sanadood ba mar walba lagu soo darayay ku soo dareen way dawladdu ku soo darto mar walba haddana ay fulin waayeen kulmiye qorshe cad buu u hayaa waxaanu ku rajo weynaa Ilaahay guusha markuu na siiyo inaanu wax ka qabano oo Burco ka bedelo oo lacagta Somaliland ka socoto tahay Aamina Waris ugu dambeyntii waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo waxay soo taraysaa oo dib u dhacaysa doorashada laga filayo inay wadanka ka dhacdo doorashada dimuqraadiyadda haddii ay hadda waqtiga la filayo ay taasi dib u dhacdo Aamina muxuu yahay qorshaha cad ee kulmiye u yaala ama maxay sameyn doonaan anagu ma qabno runtii inuu dib u dhac ku jiro doorashada gudida commissionku xisbiga madaxdiisa way la shireen wax sansaanaho muujinaya in dib u dhac kala dhacayana anagu ma ogin kalsooni baan ku qabnaa wixii la sugaaba waa doorasho Aamina Waris aad iyo aad waqtigaaga qaaliga ugu mahadsan magacayga waxa la Farxiyo Cali Cilmi anigoo dhashay gobolka Boorame anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka hooyooyinka Somaliland anigoo ku hadlaya gaar ahaan magaca Boorame waxaan hambaliyo iyo taageero la garab taaganahay ururka kulmiye sababta aan ku taageerayna waxa weeyaan iyagoo dad soo jeeda oo jecel dadkii inay wax u qabtaan baliba dhalinyarada badda ku soo dhacaysa ee isa soo tuuraysa dalkii nacday inay support siiyaan inay dalkii niyadu hayaan inay sportiskii dhisaan inay hooyooyin dhaba oo dalkoogiiba u heelan
aan yihiin oo aan ku saboorsiinayo ugu horreynba qadan adigoo mahadsan waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo maadaama tahay gudoomiyaha garabka haweenka siduu yahay dhaqdhaqaaqa haweenka ee waddankan Britain amaba wax qabadkooda xisbiga والله عادي يا بينو تاجران عادي يا بفيعين UK هوينك UK حول بدنا ويبيعين وانا أوروبيان هاد يقول وانا نبال تاجين عادي يا بفيعين ما لك لما كنت لجت أن الحفلة كساقة من قابسان حسبك كل مية والله UK يردون كقبل قابلنا وكسمينا سيدا بربيغام شافيل كل مانشستر ولا جود السمية هذه العودات كتاجر حسبك كل مية يكون عن تاجر المعارض يا محافظ هذه الحسبك كل مية ويا يا ما حسبي ذاك لو كجدوين أما حد يقول باقي لهاي والله وحنا نقول باقي لها حسبك كل مية وحسبك كلية دمر كوا قل بقول كيف بقولين كقيب قلان دولة ده xafladani ayaa kamid ah xafladaha xisbiga kulmiye oo waqtiyadani dambe ku qabanayay wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Britain taas oo ugu soo bandhigay taageerayaashiisa ballanqaadyada uu fulin doono waa hadii uu ku guuleysto doorashada la filayay inay wadanka ka dhacdo Bishaara Cali Bando Universal TV waqooyiga magaalada London